بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal waa xusuustii aan isxasuusinaynay sidaan bisha ramadaan uga faa'iideysan lahayn. walaalayaal, bisha ramadaan waa bishii qur'aanka, shahrul qur'aan, waa bishii qur'aanka la soo dejiyey wey. sidoo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan. bisha ramadaan waa bisha dhexdeedii ilaahay qur'aanka uu soo dejiyey, qur'aankaasoo hanuun dadka u ah. marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah in qiraa'ada qur'aanka aad iyo aad loo badiyo, oo qof walbo inaga naga mid ah ku talagalo waqti badan in uu u sameeyo qur'aanka akhrintiisa, inuu isku dayo qof walba inaga naga mid ah in uu khatimo 2, 3, 4, 5 jeer ama ka badan, ama ugu yaraan qofkan horay u akhrin jirin inayna bishaasi dhammaanin ilaa qur'aankii uu wada khatimo. maalintii haddaad jus akhriso 30 maalmood waad khatimi kartaa. sida fudud ee loo akhrin karana waxa weeye maadaama 5 salaadood maalintii la tukado, salaadiiba ama ka hor ama kadib haddaad 4 bog akhriso, jusku waa 20 bog, waxaad markaas akhrin kartaa jus qur'aana maalin walbaba. ama dadka ka badin kara waa inay ka badiyaan. qur'aanka akhrintiisa waa cibaado aad iyo aad u weyn, ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay. ina aladiina yatluuna kitaaba allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إلهي سبحانه وتعالى وحيري كوا أخرنا كتاب إلهي سبحانه وتعالى صلاة توسنا يؤو وقت جدي كنت كنا يسحنا وتكنا wixii aan ku risqigii aan siinayna wax ka bixinay oo ilaahay hortii wax ula baxay si qarsoon iyo si muuqataba, kuwaasi saddexdaasi camal: tilaawatu kitaabillah wa iqaamatu as-salah wal infaaqu fi sabiilillah sirran wa alaaniya wa tijaaratun lan tabuur bi ilaahi subhanahu wa ta'ala. wa tijaara aan khasaaro aqoonin wey, waa tijaaro aan lagu khasaaraynin wey, oo ribixeedii la hubo oo faa'iidadeedii la hubo. sidaa darteed waa inaad ku dadaashaa qur'aanka inta ugu badan aad akhrin karto. xarafka qur'aanka ood akhriso 10 xasano wey. xarafkuna waa ma aha kelimadda, ma aha, waa xaraf walbaba. siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man qara'a alqur'aana falahu xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha. qofka qur'aanka akhriya wuxuu leeyahay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xasano buu leeyahay, thawaab. xasanadana 10 jeer baa loo laablaabaya. alif laam miim oran maayo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa xaraf, walaakin alifun xarf walaamun xarf wa miimun xarf. alifkuna waa xaraf, laamtuna waa xaraf, miimtuna waa xaraf. alif laam miim aad akhrisay waa 30 ajar wey, 30 xasano wey. maxaa yeele aliftuna waa 10, laamtuna waa 10, miimtuna waa 10. bismi illaahi araxmaani araxiim markaad akhriso waa 19 xaraf, waa 190 xaraf. bog qur'aana markaad akhriso oo xaraf walbaba aad 10 ku dhufato, imisa xasanaad baad maalintii helaysaa. haddaad qur'aanka khatimto, haddana aad khatimto, imisa ujuura ayaad aad ku diboosid garaynaysaa ama aad dhigan doontaa xisaabta raqam xisaabkaaga ama accountigaaga aakhiro oo ajar ah. marka qur'aanka akhriskiisa inaan aad iyo aad ugu dadaalno ayaan isu dardaarmaynaa. bishaas dhagaysigiisa iyo akhriskiisa iyo inaan isku dayn in badan inaan khatimno. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo khatamaad kasiira, dhowr jeer inaan khatimno qur'aanka bishaas ramadaan. qof walbana isku dayo inta ugu badan oo awoodi karo inuu khatimo. hada wabillahi tawfiiq. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.